shirkadan qariibka ah waxa ay leedahay sharci aad u naxdin badan. shaqaale kasta waa inuu riixo dhagax weyn oo culus muddo 8 saacadood ah maalin kasta. qofkii fashilmana naftiisa ayuu weynayaa. abaalmarinta keliya ee helayana waa rooti iyo dhalo biyo ah. Tom wuxuu shirkadan u yimid shaqo raadin, balse wuxuu qayb ka noqday nidaamkan cabsida badan si lama filaan ah. shaashada derbiga ayaa soo qortay in maanta laga rabo 50 wareeg. Tom wuxuu moodayay inay kaftan tahay, balse markuu maqlay qaylo naxdin leh oo ka timid qolka kale ayuu xaqiiqsaday haddii uu istaago inay dhimasho tahay. durba dhagixii ayuu u cararay, laakiin dhagaxu wuu cuslaa. xitaa awooddiisa oo dhan markii uu iskugu geeyey wuu dhaqaajin waayey. daqiiqadihii ugu dambeeyey Tom wuxuu isticmaalay xooggiisa oo dhan si uu u dhammaystiro wareegii ugu horreeyey. abaalmarin ahaan waxaa la siiyey cabitaan gaar ah. halkaas ayaa safarkiisa cadaabta ka bilowmay. wuxuu bilaabay inuu horumar sameeyo. wuxuu gadhay 100 wareeg. arrintan waxay walwalgelisay shaqaalaha kale, iyagoo ka cabsanaya haddii hal qof badiyo shaqada dhammaantood lagu kordhin doono. nin oday ah ayaa uga digay inuu istajiyo haddii kale ay halis geli doonaan, laakiin Tom wuxuu ka fikirayay xaaskiisa uurka leh. sidaas darteed dhiranan ayuu muujiyey, wuxuuna dhammeeyey 150 wareeg. kadib albaabka ayaa la soo garaacay. dharkii ayaa laga sibay, waxaana lagu bufiyey biyo si uu u qubaysto. nasiib daro markii xigtay yoolkiisa waxaa laga dhigay 370 wareeg. abaalmarinta la siiyana waxay noqotay qalin bir ah oo keliya. markii uu Tom qalinkii si caro leh u tuuray, nidaamkii ayaa shaqada ku laba jibaray. hadda labadii jeer uu dhagaxa riixo waxaa loo xisaabinayaa 1 wareeg, taas oo ka dhigan 740 wareeg. isagoo aad u daalan ayuu dhulka ku arkay magaca Alex oo ku qoran. daawada su'aal aan ku weydiiyo waa maxay wixii ugu horreeyey ee la abuuro? haddii aad taqaano, dhanka kommentiga noogu soo qor. waa noo muhiim fikirkaaga. haddii aad halkan ila soo gaadhay, waad ku mahadsan tahay daawashadaada wacan iyo dhegaysigaaga. fadlan walaysa amran, subscribe iyo like nagu caawi. mahad